السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaan ku jiraa weli isbitaalkii waxaan ugu talagalay waxyaabaha isbitaalka yaallo oo maaragtay qofka uu maaragtay caawinaad ay u tahay inuu dhaqdhaqaaqo inuu istaago maaragtay ay muhiimka ugu tahay gabadha foolanaysa. marka waxaan jeclaystay inaan qolkan yar soo galo oo alaabtooda ay ku kaydsadaan. hadda alaab badan baa maqan, laakiin waxaan hadda helay banoonigaas oo muhiim ah aan jeclahay gabar walba oo aan soo raaco oo isbitaalka imaato inaan banoonigaas ku fariisiyo. banoonigan waa banooni u fiican miskaha markii xanuun intuu ku qabto cunugu inuu hoos usoo dego oo kafka uu soo galo ayaa maaragtay uu ka caawinayaa. kursigan ayada waa lagu istaagaa oo saa idiin sheegayba jiifka badan ma fiicna. kursigan qofka wuu maaragtay halkan ayuu dhex gelayaa, labadan kurtun ayuu qabsanayaa asagoo kusii jeedo. wuu la socsoconayaa, wuu la soo warwareegayaa. caawinaad ayay u tahay markii xanuunka qabto. wuxuu cuskanayaa meelahan maaragtay buushbuushka oo guduudan ayuu cuskanayaa isagoo jilbaha maaragtay isku jebinayo. waana hab fiican uu qofku maaragtay ku foolan karo oo maaragtay ka caawinaysa ilmihii inay soo degaan. labadan bahal aad baan u jeclahay markaan saa usoo galaba in maaragtay aan usoo qaado. gabar kasta sariirta hadday jiiftana waxaan jeclahay inaan dhaho soo kac, soo istaag, qabso maxaa la dhahayo miiskan lagu socon karo. waanu aad buu muhiim u yahay. kanna aad buu u fiican yahay. iyadana kor waxaa iska saaraysaa ama shukumaan ama waxbaa iska saaraysaa qabowgiisa. geedahan kor saaran ayagu waxay kaa caawinayaan siiba kan guduudan. lugaha gabadha markay sariirta jiifto oo kaleeto labada lugood hoostooda loo geliyaa. waa igu nasanayaan meeshii ay kala bixin lahayd lugihii ayay ugu nasanayaan iyadoo kala fogeynayso. way ku nasanaysaa, aad bay u fiican yihiin. marka keliya waxaan rabay inaan intaas idinla qaybsado. gabar kasta oo isbitaalka timaada qurbaha gabdhaha jooga wadankii ma aqaano, maybe wax kalaa laga yaabaa inay isticmaalaan. raadso geedkaas intaad fadhin lahayd maxaa la dhahaa aad sariirta iska jiifi lahayd. soo qaado sariirta ag dhigo. sariirta markaa ag dhigatid sariirtaad ku jeedsanaysaa waanad ku fariisanaysaa isaga si sariirta adiga kuu caawiyo. waad isku ruxruxaysaa hadba dhinac adiga macnihii ma dhacaysid. ha dareemin in maaragtay ammaankii iyo xasiloonadii aad dhumisay. kursigan laftigiisa isaga qofku intuu ku fariisto ayuu halkan madaxa ah ayuu ku seexan karaa isagoo labadiisa lugood kala fogeynayo. qasab ma aha kursigan oo kale, laakiin kuraasta qol kasta kursi ayaa yaala. kursigaas ayuu qofku isticmaali karaa isaga oo meeshii caadiga ugu fariisan lahaa bilcagskiisa samaynayo oo maaragtay dhabarka meeshii la xijin lahaa xabadka uu xijinayo. waa muhiim. kan waa kiyaan hadda idiin sheegaya lugaha la gashanayay. labada lugood ayaad gashanaysaa markaad sariirta jiiftid. meesha lugaha aad kala bixin lahayd labadii lugood ayaa maaragtay dhex gashanaysaa. intaas ayaan la soo ordayay. salaamu calaykum waraxmatullah.